guddiga farsamada oo soo agaasimay gogashan ogana shaqeeyay in la iskaga wareysto waxyaalihii qabsoomay la iskagana mahad celiyo la iskaga hambaliyeeyo marka hore waxaan rabaa inaan hambaliyada iyo mahad celinta ka qayb qaato ilaahay baa mahad u sugnaatay dhamaanteed si gaar ah madaxdii iyo cuqaashii iyo waxgaradkii tolka ee aaday hobyo hawl in muddo lagu taamayay furaheedii meel fiican keenay aad iyo aad baan uga mahad celinayna waxaan ugu hambaliyeynaynaa dhalinyarada aqoon-yahanada ee loo magacaabay gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka degmada hobyo waxaan leenahay hambaliyo waa rag mudnaa xaqiiqatan aanu gudoomiyaha waa aqaanaa nin dhalinyaro ah oo macallin ka ahaan jiray magaalada muqdisho qayb ka mid ah aniga ilmahaygu wax u dhigi jiray xataa marka waxaan leeyahay waa nin mudnaa aqoontiisa inuu ummadda uga faa'iideeyo dhalinyaro aad iyo aad buu maaragtay aan u rajaynaynaa jiirta ay ku jirta inuu ka soo saaro hobyo raggii u fakeray ee meesha geeyana ajri xataan Allah ka siiyo sidoo kale waxaan ugu mahad celinaynaa madaxweynaha maamulka galmudug ee dareenkii bulshada tixgelin siiyey waana rajaynayaa insha Allah hobyana inay u gudubto waqti dhow golo deegaan inay yeelato dadkuna ku wada qanacsan yihiin aad iyo aad baan u rajaynaynaa hadii ilaahayadmo si mashaariicda iyo horumarka aan filayno ay uga taabagalaan inta kadib waxaan rabaa warbixin yar inaan guddiga ayaga iska warbixiyay laakiin waxa ka mid ah dadkii soo dhisayna ka mid baa lahaa guddiganu waxaan hadda ragga adeer maxamed xaaji waxa ka maqlayay raaxawar baa ka soo dhigtay gudoomiyaha guddiga waa adeer hayl waxa u balaay qurbaha iyo midug buu u dhaxeeyaa xawar socod buu ku maraama u balaynaya haduu soo mara xataa guddiga waxay ka koobnaayeen qabiilkan dad loo arkay inay farsamada hawlaha hadda taagan oo aan hubno midii koowaad inay hadda ka miro dhaliyeen dad loo arkay inay ka qayb qaadan karaan bay ahaayeen xaqiiqatan xamar shir baa lagu qabtay golihii anu aan ka tirsanaa iyo ayaga laftigoodu way wada hadleen xildhibaanadu waa fariisteen shaqada hobyo maamul sameynteeda iyo dekada sidii maaragtay hore loogu dhigi lahaan ayaga loo xilsaar intii kala shaqaysay hadda meesha ay joogto aad baan ugu mahad celinaynaa waxaan aad ugu faraxsanahay reer mudugna maanta inay ansixiyeen oo u gacan taageen oo yiraahdeen waa idin xil saaran farsamadaas waan rajaynayaa ayaguna insha Allah hawshaas inay si kooban oo waxtara midda hadda bilaabatay iyo midda la filayo in cid afkeeda hal qof ku hadlo la yiraahdo go'aankeena waxa loogu tagay geedka ninka fadhiya arrinkaas waa arrin aad noogu muhiim ah dadku dhaqan bay leeyihiin waa is dhaqan qoys walba dad laakiin waa in la helaa aakhirka qof wax noo go'aamiyo leeyahay shir gudoonkii yaa waayo muran buu ku jira waa in muranka laga saaro shir gudoonka hadii ilaahay idmo aad iyo aad baa u mahadsantiin dhammaantiin waxaan rajaynayaa insha Allah waxa sidoo kale waxaan ka tagay xildhibaan qaali hadda magacaaba ma ogtahay magacii waxa is qaatay iyo shaqadii marka waxa leedahay sidaas ay qaali loogu tahay hadii ilaahay idmo adeer maxaa xaaji baa noo yiri ragga qaali soo doortay ragga kale inay dhinaca kale ka keeni doonaan hadii ilaahay idmo gabdho aad iyo bishaaro dhammaan macaamiishana kala duwan waxaan ugu bishaaraynaynaa in qiimo dhimis ballaaran aan ku sameynay xirmooyinka kala duwan ee adeega Anfac Plus kaasoo ka wada heli karto internet data ay la socoto daqiiqado ku hadal ah iyo sidoo kale fariin qoraaleed haddaba xirmooyinka aan qiimo dhimista ku sameynay waxaa ka mid ah xirmada 25 senti oo aan ka dhignay 400 MB ay la socoto 10 daqiiqo halka $1 aad ku heli karto markaad ku shubato 850 MB oo ay kula socoto 30 daqiiqo waxaana isticmaali kartaa muddo 7 ah hal $1 markaad iibsato waxaad helaysaa 2 GB oo data ah 100 daqiiqo iyo sidoo kale 50 fariin qoraaleed halka $2 aad ku heli karto 5 GB oo ay kula socoto 200 oo daqiiqo iyo 100 fariin qoraaleed halka $5 aad ku heli karto 12 GB 500 oo daqiiqo iyo 150 fariin qoraaleed sidoo kale xirmada $10 ayaa ah 28 GB oo ay kula socoto 1000 daqiiqo iyo sidoo kale 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed $20 ayaa sidoo kale ku isticmaali kartaa 60 GB oo ay kula socoto 2000 oo daqiiqo 5 daqiiqo oo dibadda ah iyo 500 oo fariin qoraaleed halka $50 marka aad iibsato aad heli karto 140 GB
oo ay kula socoto 5,000 oo daqiiqo 10 daqiiqo oo dibadda ah iyo 1,500 oo fariin qoraaleed haddaba si aad uga faa'iidaysato xirmooyinka kala duwan ee adeegga anfac plus uga shubo EVC Plus-kaaga adiga oo garaacaya xidig 724 xidig 6 nambarkaada aad gelinaysaa xidig lacagta aad dooranaysaa afar gees ama haddii uu kaar kugu jiro kaliya garaac xidig 126 afar gees mahadsanid